الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم horta ilaahay ma hadlay subxaana wa tacaala horta maanta waxa weeye waa maalin qiimo weyn ku leh taariikhda Soomaaliland kuna yeelanaysa insha Allah tacaala waxaan hambaliyanayaa marka horeysa guurtida horta guurta waxa loo abuuray gebigeeda waxa loo abuuray ee loo sameeyay guri aqalkaas golahaas waxa weeye inaanay reerna ku abtirsan xusbina ku abtirsan ay noqoto gole ka madax banaan siyaasadda oo danta uu ka taliya waxa weeye golaha qura wax ay soo gooyeen dad la soo doortay oo baarlamaan ama wakiilaha uu yiraahdee iyo dawladba gafuur ku dhufan karta awooddaas leeyahay awooddaas ma isticmaali jirin reereen noqdeen tanayseerbaa noqdeen asxaabay galeen laakiin maanta waxay waajibkoodii loo sameeyey ay horta maanta doorteen waxaan leenahay hambaliyo maanta intii Soomaaliland jecleed inay socotana maanta waa u farxad intii doonaysay Soomaaliland inay gasho muran iyo yooyootan iyo iska laadlaasina maanta waa u dhimasho komishiga hala kala diro arrin weyn mahmuudin ahayd 7 qof baa la diidan yahay ma ahayn arrin masiirka Soomaaliland lagu mijaxabanay anigu ilaa 2011kii 2002 ayaan doodaha kordhiska soo maray oo marka cigaal baa jooy ilaahu naxariistay ilaa 2009kii markaan 6 point soo saarnay intaan ku jirnay soo kordhiska maalin door ka xumeed ma jirin laano markii hore intii hore dhan isku qalbi baan ahayn waxaan ugu jirin influence kale ana oo isjiidanay laga doorka influence baan ugu jiray shay anigu intan dalkan imay wax badan subhanahu wa ta'ala oo aan hindisay ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala taydi ka dhigay waxa igu adkaa intan hindisa keenay hindisii ciraan kaga dhignay gudoomiyaha baarlamaanka iyo tan maanta 5 bilood baan ka shaqeynay arintaas inay suurto gasho doorashaas inala dhaafin 2019 lana waxaan ogeyn waxa la damacsan yahay baan ogeyn anigu ma nihin lookan way jirtaa dad iska ka calcalaashado lacag buu qaatay oo isbedelayo waxa adduunka socday garanayo lacag waxay garanayaan qaad la cunayo laakiin waxa ku leeyahay arintan des and life baheed waa guul inoo soo hoytay waxaan hor taagan qodobo kale waxa weeye misaamiqa ismigii kuraasida iyadana waan dhamaynaa insha Allah taala wax lagu wada raaliyahay maadaama aan layna tirin oo sens jirin berigii aan sameeynay waxaan oran jiray haddaad dayax la waayo xidigaha lagu socdo oran jiray berigii aan jirin diiwaangelintu waanu ka tabtaan waxa jirtay waxa weeye waa dhaqaalaha waxa weeye horta markii inagu isku tashana waa inagu ceeb inaynu wax doorashooyinkeena oo 12 milyan u badan tahay inaynu u xayirnaana shisheeye ma ilaahay haduu dadka shisheeye wax naga siiyo waa ilaahay mahad subhanahu wa ta'ala hadii kale inaga isku tashanayna iyadana waa dhafeena waxa ogaataan guurtiga xilkeedu waxa weeye inay muddada ay ka dhamaanayso golaha markaa fadhiya ay sheegaan laakiin muddada ay dhacayso doorashadu timetable-keeda commission kale commission waxa leenahay hadda hawlgala waqti timeline samaysta insha Allah taala isku iskareeya waqtiga si degdeg ah ugu sameeya madaxweynaha waxa leenahay ku talagal lacagtii la sameyn lahaa ayaan ku sameyn lahayn si uu weyn tanbaheed waxa kale waa dhaafin insha Allah taala waxa weeye Soomaaliland waxay haysataa jaani safi abay maanta haysataa hadayna ka faa'iideysano Soomaaliya shaq bay ka shaqeeyay bay dhashay waan ka xunay horta marka hore Soomaaliya wixii lagu sameeyay South East meesha la baydhabayo South West loo bixiyay waxaan aragnaa cunfi iyo caga jugleyni inaanay waxaan u sheegaynaa maamulka Muqdisho
inaanay magaranaysaay danta wixii loo soo diray ahayn reconciliation baa loo diray inay soomaaliya itaaliya hagaajiso soomaaliya laakiin quwad baan isticmaalayaa dadka suuqan ku tooganayaa mudaharaadka waxaan isticmaalayaa ciidamo shisheeye cawaaqib xumo ba leedahay ta laga joojaa leenahay waxaan leenahay ninka laga doortay dhulka Garowe waxaan leenahay waxaad ku dayataa madaxweyne hore Faroole Soomaalidu maanta meel ay joogto nabad bay u baahan tahay daris wanaag baa laga baahan yahay labadaada gobol iyo barkaaga hagaajiso intuu Faroole hagaajiyay rag ka horiyay samee wadadii Cabdiwali Gaas harraacin laana adu waxay keenin maqaaditid wad miyo yaayirisa waxaan filayaa inaad adu ka fiicnaan sumiir qabtid waxaan leenahay annagu soo dhaweynaa wax badan baa laga wada shaqeyn karaa Soomaaliya maanta u baahan magaranaysaa in gacan la siiyo u baahan roolkeeda waan ka ciyaarnaa insha Allah taala ina waa jaarkeena nabad noqoto waanu ka ciyaarnaa magacii Soomaaliya waa biyan Soomaaliya caarkeeni dibadu yaala dagaalada maalinta la dhacay ummadda Soomaaliyeed oo leeyahay waxa la dilaya shabaab marmarsiya loo helay Soomaaliya dhulkeedii la boobo waa ogtiin badii waxa ka dhacaya badii China la siiyay yuu maajuujkii la sheegi jiray ayaa la gurta kalluunka Soomaaliya وقرنا وحراش بوتاجنت قرنا ماشي هايست تاساسان لهاي نبض باندون هاي وحنا جرو وحنا تولون كي وها جايستين مقالون باكدكتين يقولون جرو الاستاج كريم ما تروى مقالو عاصمة واتكبورنا رقباتين يدوم في عن باتين سمايست سومالي وحب عند سومالي وحب عند سنكو قاعد من قرد كيني اعتراف سنكو هي لمين وقايب سنة هاي دتك على مدى يالينا ومدينا وحوم سينو دنيرتين وما أنت بقول سديتهم ويتقاون تاي حق ميركل وحق الإيجيان ونبض بها يستان نبض عانها لقو دلان لنا ومدينا بيا مسينو بيا ويبستها عافمات مسينو عافمات ويبستها وحبر شمسين ويبستها نلك ويبستها وضم ما هيسطو سادو اللي ملقوا ما نقضوا سياسيين تنوحا ليه هاي نيكا سياسي ما هي مدركة قيبيو dadka siyaasiga waa inuu dadka mideeya unifyer noqon oo unifyer noqon waxaan jecelahay inaynu inoo gamcaysaysana doorasho wanaagsan qabanaa ka leexanaa leesan leena baranaa aan dad wanaagsan oo iimaan leh aan qabanaa insha Allah taala reform uu dalkan u baahan yahay isbedel xoog loo baahan yahay isbedel baa loo baahan yahay waxaan ku samayn karnaa inagoo horta marka hore khilaafkeen dhexdeeda samaysana ummad iska laalaada dumar caytamisa imid yootamisa qaran ma dhisi karto ummad aan tuulo wada yeelan karin qaran ma wada yeelan karto ummad magaalo kala sheeganaysa burcada barbara burcada bare hargeysa koonfurta hargeysa waqooyi hargeysa dal lagu ma dhiso dalka wuxuu u baahan yahay hoggaan buu u baahan yahay in la adkeeyo la baahan yahay sharci buu u baahan yahay waxa jira shakhsiyaad nala jooga oo qalbiga kala socda ma jeerteen waana maalmood iga caaya meesha adeer waxa leenahay hadaa caashaqsantiin Somaliland ma ha jirtay da u taga laakiin anaga nagu dul caayimaysan dalkeega markana soo fargeliyaan Garowe waan la hadlaynaa ninkii boqor burhaan jecelo da u tag halkaas uu fadhiyaa laakiin anaga igu tumatid oo aydiigu ay calaalisay ka qabalmay waxa weeye walaal dalkan waa loo dhintay shacabigana uu dadaalay 27 sano ba itiraaf u jaray wadooyinku dhistaa guryahay dhistaan biyay samaystaan in lagu ciyaaro maaha أنا وسومالي لما عليهم كعم في عمرو فرينا كعم بانوسيننا وحلينا هاي الصومالي قولي هاي جاي جستو قوة له سومالي وده هذا السنة ما المها وحلقات يكتب السفر سوسايتي سومالي ما نتقاركوا في لها بالها وحنا كنا نحن السومالي ولا موجود ولا دوحة هايني الله ورتيني هاي جاي جست سومالي ودي سنتين هذا دريالة تهودي بقى دريا يا بيلها وأدونك اللي يابسي هاي سومالي نديك هالي Soomaaliya gacanta la geeyaa waana taariikhdeena kaliya shanaad waxa ka socda isbedel Itoobiya isbedel baa ka socda isbedelkaas waxaan mid nabad noqday insha Allah taala ilaahay nabad ku dhameeyaan doonay Itoobiyana in ilaahay inagu dilaacin ayaan ku doonay nabad isbedelka wada magaca ra'iisul wasaaraha doonay Soomaaliya waxaan raacay Soomaaliya qabiil wax lagu ma noqdo Soomaaliya qaad wax lagu ma noqdo Soomaaliya midnimo wax lagu noqdo wixii Soomaaliya ay loobina dadka waxa leena ninka kursiga doonaya ninka lacag doonaya dalku haduu hagaago oo la itiraafo wuu inaga badan maqaawil baan doona maqaawil maanta ma ka eegtid
securitygeenu ma dhama immigrationgeenu ma dhama haddaanan waddanku aanu yeelan intelligence service oo ka shaqeeya khatarta gudaha iyo khatarta dibaddaba dee nabaddeenu khatar bay ku jirtaan waxaan leenahay hala xoojiyo nabad isguda hala xoojiyo hala xoojiyo immigrationka hala xoojiyo leenahay waad ogtihiin gidaaradiina waxa ku dhaliya oo ku dhaliya dadkii dawarsanayay oo dad ka yimi Ethiopia waad ogtihiin masaajidda lama tagi karo yacni ummad dhan oo isxambaarsan bay nagu dhexno waxay noqonay joonyad magaalada koosara timira oon afka ka daboolen Somaliland waxaan leenahay madaxweynaha waxay waddankani wuxuu u baahan yahay reform waddankani wuxuu u baahan yahay midnimo wuxuu horumar buu u baahan yahay yooyooto ma baahna ku jiiqsina looma baahna wax iska celina looma baahna waxaa wada qabsaa loo baahan yahay waa inaynu gacanta u fidinaa caaro u fidinaa qof quri inaga maqnaada maaha waa inuu dadkeena midayna haddaynu inagu qaybsannahay waxba iska celin mayno waxaan leenahay ninkaa caare cadhoodana kiiskaaga waa la geliyaa dalkaa ku soo noqo xaalad jabad lagu sameeyaa ma jirto Soomaaliya nabad buu haysata SN waxay ka sameeyay cadaadis nafil caarid bahed waxa maanta ninka guriis jooga caare u tagay ma jira cidna u tagay mayso yani cid laga yaamo ma leena yani cid laga yaamana midna baan ku baaqin haddaan nahay cud wadani waxaan leenahay insha Allah ka soo qayb gala waan la wadayna wada hadalkii in inagu wada socona dowladda wanaagsan sameysano oo adduunka inala macaamilo markan talaabo dib hor u qaadan laba dib u qaadina waxaan leeyahay insha Allah in hore loo socdo weey horeynu socono biidnaa kariim wassalaamu calaykum wa rahmatullahi